بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta waxaan isugu nimid halkan inaan sagootino walaalkeen Cusmaan Cabdullaahi oo u baxitimayo halka iyo Nairobi. Cusmaan bulshadani muddo kamid ahaa wuxuu kamid ahaa dhalinyarada magaalada, wuxuu kamid ahaa dhalinyarada jaamacadda, wuxuu kamid ahaa dadka bulshada u taagan waqti walba. Marka Cusmaan waxaan leenahay safar salaam انت يا waxaan isugu nimid inaan Cusmaan macsalaameyn. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد. maanta waxaan halkan iskugu nimaadnay inaan walaalkeen Cusmaan Cabdullaahi oo naga ambabaxaya una baxaya safar ilaa dhinacaas Nairobi inaan u duceyno. marka koobaad waxaan leenahay safar nabad qabta insha Allah taala oo ducadeedii iyo maartay waxaadeel ku dheehan sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku safarta aadayo dadka ugu duceyn jiray inaan kugu duceyno si Ilaahay nabad kugu geeyo. adigana inaad ducadii safarta aad akhrisato xilligaad baxaysi iyo safartaada idil insha Allah taala. runaantii Cusmaan magaaladan hawl badan baad u haysay dhalinyarada iyo duqeyda iyo waxa idilba shaqo wanaagsan oo wacan baad bulshadan aad u haysay kala gedisan khaasatan dhinaca maartay waxbarashada iyo iskuulaha dhalinyarada maartay iskuulaha joogta qaybaheeda kala gedisan aad baad ula shaqeynaysay haday noqoto dhinaca wacyigelinta waxbarashada iyo dhiirigelinta iyo ku xirnaanta maartay masaajidaha iyo akhlaaqda wanaagsan inay ku dadaalaan. kulay anagu waxa waaye community ahaan booskaadi waan tabi doonaa insha Allah taala, laakiin waxaan rajeynaynaa inaad dhinaca kale bulshada u tagayso sidoo kale inaad cilmigaadii iyo aqoontaadii qotada dheereed inay ayagana ka faa'iideystaan. adigana wixii maartay shar aha oo dhinacaas jiray inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka badbaadiyo. intaas kadib qofka hadii uu taqwada Allah subhanahu wa ta'ala uu laazimo oo Allah ku xiran yahay waa qof markasta xirsi xiran oo arrimihiisa ay urursan yihiin. intaasna waan ku ognahay. marka insha Allah ta'ala dhamaantan waxaan ku rajeynaynaa safar insha Allah ta'ala oo lagu guuleysto. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaykum. magacaygu waa Suud Colaad walaalkeena Cusmaan oo ah nin community-gan magaalada St Cloud ka tirsanaa, nin dhalinyaro ah oo aan horeyna Kenya iskuul soo kornay. maanta magaalada St Cloud ka ambabaxayo cashadan ugu casuumay farewell-ka maanta waxay ahayd inaan iska kala warqaadano all professionals Soomaali meel bay joogaan oo dad isku xiran oo day by day iskuul xiriiro. walaalkeena waxaan u rajeynaynaa aqoontii uu bartay inuu ugu faa'iideynayo inuu aadayo qaaradii qof walba oo is arkaan uu yahay nin isfahmayaan oo la shaqeyn karo oo community-ganbo halbowlo u ahaa. waxaan rajeynaynaa bulshada uu ku biiri doono oo halkaas iyo Africa inay dad ka faa'iido noqdaan. asagana waxaan u rajeynaynaa howlahaas uu xaq u aaday inuu Ilaahay u fududeeyo asaga iyo familkiisa community-ga St Cloud-ne. waxaan leenahay thank you wixii aad u qabatay bulshadan since the day aad ku soo biirtay. aniga magaalada waxaan soo degay 2015kii gobolka Minnesota. markaas Cusmaan ay isbaran ilaa maanta wuxuu u taagnaa inuu community-gan iyo hadba meeshii wax ka qaban karo dadka wax qabto. maanta oo professional level uu gaaro oo globally uu shaqo waadayeen waxaan u rajeynaynaa guul. bulshada caawa meeshaas kugu ma dhalinyarada u badan ee reer St Cloud cashadanne waxay ahayd in la isku magaranaysa macsalaameey walaalkeen bye bye lagu dhaho. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cashadan ugu casuumay. anigana maxaan dhahayaa walaalkeen good luck in your future endeavors. mar walba waa kula xiriireynaa waana wada joognaa. qaaradda Africa iyo community-geena Mareykanka degan kulli dhalinyartu bay sugayaan ilaa naga dhigo dadkooda wax u qaban lahaa. aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin.